Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka caalamka oo aad si toos ah kala socotaan shacabka media xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Waxaana warka idiin sheegaya anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. Qodobada warkayaga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah khilaafka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Galmudug oo mar kale u muuqda mid cirka isku shareeray. Trump oo si xun bahdilaad ugu sameeyay boqorka dalka Sacuudi Carabiya. Dalalka Holland iyo Denmark oo soo saaray warbixin qusaysa Soomaaliya iyo Somaliland. Puntland oo si aad ah looga hadalhayo lacag lagu soo rogay ragga furaya xaasaskooda. Dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan oo qaadacay dalab la yaab leh oo uga yimid Britain iyo Mareykanka. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo Sacuudiga la gashay heshiis muhiim ah. Sidoo kale daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa su'aasheena maanta anagoona dib u eegi doonaa su'aashii shalay aan idiin soo gudbinay warkii oo fidsan. Khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ayaa waxa uu u muuqdaa in mar kale uu cirka isku tolay iyadoona warar kala duwan ay ka imaanayaan deegaanada maamulka Galmudug. Maamulka Galmudug ayaa sheegay in weli ay socoto faragelinta madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku hayaan arrimo hoosaadka maamul goboleedka Galmudug. Wasiirka warfaafinta maamulka Galmudug Maxamed Aadan Cusmaan Masagawa oo u hadlayay maamulka ayaa sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay weli dhibaatooyin ku hayso maamulka. Masagawa mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ayuu sheegay in madaxda dowladda ay adeegsanayso xubnaha aqalka sare ku matala maamulka Galmudug. Golaha aqalka sare ayuu sheegay inay ka gaabiyeen gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah isla markaana ay ku milmeen faragelinta madaxda dowladda ay ku hayso maamulka Galmudug sida ay hadalka u dhigeen. Nuqul ka mid ah hadalkiisa ayaa ahaa waxaa weli nagu socda faragelinta madaxda dowladda federaalka ay ku hayaan arrimo hoosaadka maamul goboleedka Galmudug waxay weli qaati ka taagan tahay faragelinta dowladda oo hadda yeelatay weji cusub iyaga oo adeegsanaya senatarada aqalka sare ee Soomaaliya. Waxaa cad in aqalka sare ay ka gaabiyeen gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah ayuu yiri wasiirka warfaafinta. Waxaana hadalkiisa uu ku sii diray waxaanu qiraynaa in senatarada aqalka sare ee matala ay ku milmeen faragelinta dowladda ay nagu hayso waxaana kula xisaabtami doonaa gudasho la'aanta matalaadooda. Masagawa ayaa sheegay in la gaaray xilligii maamulka Galmudug uu la xisaabtami lahaa xildhibaanada aqalka sare ku matala kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen shaqadooda. Waxaa weli muuqata in xal waara aan laga gaarin khilaafka u dhaxeeya madaxda Galmudug oo marba marka ka dambaysa weji cusub yeelanaya waxayna arrinta ka sii dartay kadib markii xildhibaanada ay laba u qaybsameen isla markaana xilkii ay ka qaadeen inta badan madaxda labada dhinac fadhisa. Dhinaca kale Galmudug ayaa dowladda Soomaaliya ugu goodisay inay ku sii fogaan doonto xiisada kala dhaxaysa waa haddii ay faraha kala bixin amuuraha gaarka ah ee maamulka Galmudug sida uu sheegay wasiirka warfaafinta maamulkaasi. Dalalka Holland iyo Denmark ayaa waxa ay soo saareen war quseeya Soomaaliya iyo Somaliland. Safiirada dalalka Denmark iyo Holland u jooga magaalada Nairobi ee dalkani Kenya oo sidoo kalena qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo bilaabo wada hadaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya oo muddooyinkan hakad ku jiray. Safiirka Denmark ee Kenya Mette Knudsen iyo safiirka wadanka Holland ee Kenya Frans Maken ayaa sheegay inay muhiim tahay in si degdeg ah loo bilaabo wada hadalada Hargeysa iyo Muqdisho isla markaana la kulansiiyo madaxda Somaliland iyo Soomaaliya. Waxaana hadalkan ay ka sheegeen kulamo ay toddobaadkan la yeesheen wakiilka Somaliland u jooga magaalada Nairobi ee dalkani Kenya. Beesha caalamka waxa ay diyaar u tahay inay isku keenaan labada dhinac Somaliland iyo Soomaaliya wareeg kale oo wada hadal ahna dib ay u bilaabaan sida waxaa tiri safiirka Denmark Mette Knudsen. Waxayna intaasi raacisay nabadgelyada deganaanshaha iyo dib u soo kabasho waa in la gaarsiiyaa gobolka Geeska Afrika. Waxaa muhiim ah in dhammaan colaadaha la dhameeyo oo ay ku jirto tan u dhaxaysa Somaliland iyo Soomaaliya. Ergeyga dalka Holland u qaabilsan Kenya oo sidoo kalena qaabilsan arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya ayaa isna waxa uu yiri waa muhiim in wadajir loo shaqeeyo idinka Somaliland iyo Soomaaliya. Waxaad haysataan taageeradeeda si loo xaqiijiyo dhiirigelinta nabadda.
warbaahinta Kenya ayaa warkan baahisay waxaana ay sheegeen inay suuragal tahay in beesha caalamka ay madaxda Soomaaliya iyo Somaliland kulan siiso iyagoo sheegay inay ugu badan tahay in kulankaas uu ka dhici doono magaalada Nairobi kulan loo qorsheeyay inuu bishii March Djibouti ku dhex maro labada dhinac ayaa fashilmay kadib markii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay si weyn uga carootay gabi ahaanba tallaabadii shirkadda DP World ay heshiiska kula saxiixatay Somaliland iyadoo heshiiskaas ay qayb ka tahay dowladda Ethiopia weli waxaa sii adkaanaysa xiriirka u dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyadoona mar kale war-saxaafadeed aad u kulul ay soo saareen dowlad goboleedyada Soomaaliya bayaan ka soo baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa waxa ay ku gacan saareen isla markaana wax aysan aqbali karin ay ku sheegeen hab nidaamka uu wax u wado aqalka sare oo inta badan loo kala diray maamul goboleedyada dalka war-saxaafadeedka ay soo saareen dowlad goboleedyada ayaa waxa ay ku sheegeen in aqalka sare ay xereer mareen qodobadii ka soo baxay shirkii Kismaayo si gaar ah qodobada 3 ilaa 9 kaasoo shaacinaya faragelinta dowladda ay ku hayso dowlad goboleedyada ugu dambeyntii war-saxaafadeedkan ayaa waxa ay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ugu baaqeen aqalka sare inay qadariyaan mowqifka dowlad goboleedyada ee shirka Kismaayo isla markaana aysan faragelin ku sameyn arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Sacuudiga waxa ay la gashay heshiis muhiim ah dowladda Soomaaliya ayaa heshiis lagu horumarinayo gaadiidka cirka dhulka iyo duulista hawada la gashay dowladda Sacuudiga heshiiskan ayaa waxa dowladda Soomaaliya u saxiixay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo haatan booqasho ku jooga magaalada Riyadh ee dalka Sacuudi Carabiya halka dhanka Sacuudiga uu saxiixay wasiirka gaadiidka dalkaasi Cabdixakiin bin Maxamed Al-Tamimi heshiiska labada dal ayaa dhigaya in si wada jir ah looga wada shaqeeyo arrimaha duulista hawada waxaana ay Sacuudiga ballan qaaday inay dhaqan gelin doonto heshiiska dhinaceeda is-afgaradka waxaa sidoo kale uu xoojinayaa wax wada qabsi dhinacyada duulimaadka ah ee labada dal ee Soomaaliya iyo Sacuudiga dhexmara dowladda Soomaaliya ayaa la fahansan yahay in heshiiskan uu leeyahay ahmiyad weyn oo ku aadan horumarinta iyo iskaashiga dhanka duulimaadka waxaana uu u sahlayaa in labada wasaaradood ay isweydaarsadaan duulimaadyada xogta ku aadan sidoo kale heshiiska waxaa dhinaca Soomaaliya goobjoog u ahaa siyaasadaha safaaradda Soomaaliya ee wadanka Sacuudi Carabiya Salim Macow Xaaji iyadoo dhinaca dalka Sacuudigana ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka boqortooyada heshiiska ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Soomaaliya ay bilahani xooga saarayso dhanka duulimaadyada Soomaaliya iyo wadamada ay isdhehayso kaalin wanaagsan ay ka qaadan karaan horumarinteeda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa la ogaaday in uu si xun u bahdilay boqorka dalka Sacuudi Carabiya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si aad ah u bahdilay boqorka dalka Sacuudiga boqor Salman bin Abdulaziz isaga oo ka dhigay qof aan isku filneyn oo Mareykanka la'aantiis aan xukunka hayn karin Trump ayaa adeegsaday hadal aan diblomaasi ahayn oo uu ku weeraray Sacuudiga oo ay saaxiibo dhow yihiin waxaana uu sheegay in uu u digay boqor Salman kuna wargeliyay inuusan xukunka 2 toddobaad haysan karin taageerada ciidamada militariga ah ee Mareykanka la'aantood waan difaacnaa Sacuudi Carabiya miyaad leedihiin waa qani waan jeclahay boqorka laakiin waxaan dhahay boqor waan ku difaacnaa halkan maadan sii joogeen 2 toddobaad anaga la'aanteen waa inaad bixisaa lacagta militariga ayuu Trump ka sheegay fagaare ku yaala South Haven ee gobolka Mississippi Trump ma sheegin xilliga uu hadalkaas ku yiri boqorka dalka Sacuudi Carabiya marka laga yimaado hadaladaas adag maamulka Trump waxa uu xiriir dhow la leeyahay Sacuudi Carabiya oo uu arko awood uu uga hortagi karo himilada Iran ee gobolka iyo fulinta siyaasadeeda Trump waxa uu Sacuudiga ku tagay safarkiisii dibadda ee ugu horeeyay sanadkii hore marka loo doortay madaxweynaha dalka Mareykanka waxa xusid mudan in markii Trump uu booqday Sacuudiga ay abuurmeen khilaafaad wadamada khaliijka dhexdooda taas oo ugu dambeyn keentay in qadar xiriirka loo jaro iyada oo Trump sidoo kale marar badan hadallo bahdilaad ah uu ku yiri amiirada Sacuudiga hadana wali waxa jira xiriir ka dhaxeeya labada dhinac waxayna taageereen qorshaha Trump ee ah in magaalada Qudus loo gacan geliyo maamulka Yahuuda
isla wararka Sacuudiga ayaynu ku guda jirnaayay Maxamed bin Salmaan oo qaadacay dalab uga yimid dalalka Britain iyo Mareykanka dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa qaadacay qorshe lagu doonayay in lagu dhexdhexaadiyo boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo dawladda Canada oo dhawaan xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya uu gaaray meeshii ugu xumeed. bin Salmaan ayaa diiday in dawladdiisa ay miiska wada hadalka la fariisato Canada isaga oo taa beddelkeed sheegay inay doorbidayaan calaaqada labada dal oo sii fogaata. waxa uu bin Salmaan sheegay inay adkaan doonto in dawladda Canada ay kala hadlaan arrimo ku saleysan fargelinta ay ku hayaan maxaabiis u xiran dawladda Sacuudiga isagoo carabka ku dhuftay in xukunka iyo sharciga dalkooda ay u madax bannaan yihiin. dawladaha Britain iyo Mareykanka oo dalbaday xalinta khilaafka labada dal ayaa waxa qaadacay dalabkaasi bin Salmaan oo ku jawaabay in Sacuudiga uu garanayo cidda uu dagaalka kala dhaxeeyo iyo sida loola hadlo. bin Salmaan oo doonaya inuu sii fogeeyo khilaafka boqortooyada iyo Canada ka dhaxeeya ayaa dalbaday in Britain iyo Mareykanka ay faraha kala baxaan khilaafka labada dal soo kala dhexgalay. xiriirka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Canada ayaa heerkii ugu xumaa gaaray kadib markii dawladda Canada ay si kulul uga hadashay xariga dad u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka oo dhawaan dawladda Sacuudiga ay xabsiga u taxawday. goor sii horeysay dawladda Sacuudiga ayaa go'aansatay inay xakamayso dhammaan ganacsiga iyo maalgashiga cusub ee u dhaxeeya boqortooyada iyo dalka Canada. si kastaba ha ahaatee reer galbeedka ayaa u muuqanaya kuwa xal u waayay khilaafka labada dal inkastoo ay jiraan isku dayo kala duwan oo lagu mashquulsan yahay oo ay wadaan wadamada reer galbeedka taa oo la isugu soo dhaweynayo labada dhinac oo si weyn xurguf ay u dhex martay. markana su'aasheena maanta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإن سلام دمان ورياش سلطانك لاليال أنا واي يونس علي واي أنا أكسر الله يونايتد ستيت الحمد لله معناها waxaan wax ka dhigi karaa arintii Sacuudiga iyo Falastiin Sacuudi macnaha dad yar oo wali quursanan maayne sida u badan dadka muslimiinta macnaha Sacuudiga akhbaar fiican ba meesha ma ugu sugaynin wax oo muslim kalkaale maba laga sugaayo Sacuudiga sideeda badanba waa sida yani ila tahay macnaha dhibaatada taagan waxay noqotay Sacuudiga dawlad kasto muslim ah oo la weeraro ayada in loogu soo gabado ayay aadi u noqoto wax aadiyan waaye macnaha taas dhib ma macnaha wax jira waaye oo haddii isku xiraan Falastiin haddii isku xiraan Ilaahay isku xiraan wax dhib oo jira male Ilaahay isku xiraan baan dhihi lahaa aniga iyo isku xiran Sacuudi iyo waxba isku xiran ha noqoto qofka xaqiisa ay wax ka sugayaan oo kaalmo ka sugayaan Allahoodii abuurtay hasbuna Allah wa ni'mal wakiil baaleen macnaha wakiilnimo Ilaaha kaaga filan qof kasto muslima Sacuudina waxay goosanaysaa goosato Sacuudi dawladaha ay la shaqeyso waa la ogyahay adduunka waa laga ogyahay muslimiinta oo dhan way ogyihiin marka waxaan dhihi lahaa waxaas macnaha Falastiin naftooda inay u jaxan ma aha arinta Sacuudi maxaa waay Sacuudi bariyahan dambe way soo niyad goosatay dhanka muslimiinta way ka soo goosatay macnaha muslimiin waxay rabaa ku dhacani hadaan noolahay ba arinteeda waxay joogtaa ani hadaan noolahay cid rabtaa dhimato macnaha Sacuudi saas ay taagan tahay hadee markii si loo fiiriyo wadanka hadda ugu weyn muslimiintana waa lagu tiriyaa mid kale waxa macnaha lagu xishmeeyaa macnaha Kacbadan waa lagu xishmeeyaa beedkii Ilaahay baa meesha ku yaal حرمينكي با ماشي كيال وروحشميا لكن سعودي واحد دولة مسلم وهو هذا عيادة لديه كرو وحاسي لقبتي أما ولا دوبتي أما معنا أذوب بيك قبتي أما ويقرب استاكت لديه كراني إمام موقته الحمد لله رب العالمين أنا تا وحن بسوق وجميل لها
falastiin naftoodii macnaha ayay niyadda gashanan qof bilo aadan inuu wax u tarayay niyadda gashanan niyadda ha ku xirtaan allihii boqorka ahaa oo koonkan abuuray in ay wax ka sugayaan allahaasna macnaha oo cadowgoodii ka qaban karo allahaasna irid kastoo xiran u furi karo ha isku xiraan sacuudi iyo waxaan sheekadooda ka baxaan saasan ka dheelahaa meenaha jawaabtayda intaas ay noqon lahayd. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamay tv-ga shacabka media aad baan idin salaamay hooyo. dee hooyo maanta waxa aan ka dhiibanayaa fikirkayga carab iyo sacuudiya imaaraad ninkii naf ka sugayay ee soomaaliga ahaa meel kasta uu joogaba gobol kastuu joogaba waa tuu ku quus qaadan lahaa tii uu ku quus qaadan lahaa maanta waa tan way caddahay. waxay yihiin inagoo afrikaan ah oo soomaali oo dad madmadoowa iyo waxay ku dhaqmayaan iyo heerkay taagan yihiin carabtoodii cadcadaydii iyagii inay isboqon goynayaan oo wax allaala wixii carab ka dhacay ee dowlad walba la baabiiyey inay iyagu mas-uul ka ahaayeen nimankaasu innagana aynagu wadaan aakhira inay inoo diraan oo inooba direen oo inoo hor ordayaan calooshooda u shaqaystayaashii aan dal iyo diin midnaba iyo dadtoon aan naf u haynin. waxa weeyaan waxa le waraabaha hooyadii cunay habaryartii ayuu naf u hayaa. tan waxa weeye tii ay soomaali ku quus qaadan lahayd horena waa loo ogaa. carabtan wax faa'iido leedahay male. imaaraad iyo sacuudi waa nimanka adduunka baabiye iyaguna iswada dabaxay iswada gowracay innagana raba adduunka qariiradiisa inaynu ka baxno soomaali haddaynu nahay. dee maanta waxa weeye tano tii soomaaliya hadday caqli leedahay ay ku caqliyaysan lahayd weeyaan. waxay yihiinna waa la yaqaanaa. marka carab ninkii ku hoos noolaa iyo ninkii hoos gablaynaya ninkii shilima ka soo qaadanayowba maanta waad aragtaa waxay ku hayso falastiin waxay ku hayaan waad aragtaa iyo meel walba caraba iyagaa gubay. innagana nolol inooma ogola waxaan leeyahay waxa isku sheega waxgaradka waxna ma garanayaane ee meel walba taagan ee madaxweynaha Farmaajo fikraddu qaatay aan ka soo horjeedo dhami maanta waatay ku quus qaadan lahaayeen. madaxweynaha Farmaajona wuu mahadsan yahay waa geesi garab waayay weeyaan iyo qayre waa laba nin oo aan kala dhicin oo Ilaahay noo soo diray. laakiin in baasoo meel ka timi ayaa waxaan ku oray cagaha ku dhagsan. insha Allah waxaan idin rajaynayaa khayr iyo barako. fikirkaygu waa ka carab waa la ogyahay waxay tahayba waa la ogyahay. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب كميديا وإذن سلامي سلام كسوق وذي كشك الغابة وإذن جعلنا هاي سيدة برنامج سيدة أو معناها وناسن أد نوغسو قدون إنسان الله كسكو أد بدوغم حسنتهم مركا حان أوران لها برنامج كان أو هذا معناها لشيء جاي أو cidaan agtooda aniga joogo haway oo ay iga jaranayaan macnaha dadka reer Falastiin aad baan ugu xumahay waana ka murugeysanahay. muslimiinta meel walba ay joogaan lama qabaan ra'yigaas ana ku faraxsano. marka ani fikirkayga sariimka waxay ila tahay inay isku tiirsadaan oo iyaga macnaha ay isku tiirsadaan ay gacmaha isqabsadaan Allah ay kaashadaan wax walbo koomka maamulayo ay qalagaya wax walbo koomka maamulayo waa ilaah baa ku cilmi leh. ilaah baa tasarrufadiisa iyo wixiisa ilaah baa awood u leh wax walbo. marka waxay ila tahay waa wax aad loogu xumaado oo aadna macnaha loogu murugoodo waaye. marka sida waxay ku tusaysaa oo amarka ka soo baxa dawladaha reer galbeedka khaasatan Ameerikaanka
ay ugu dhagan nugul yihiin cidaan aan la joogo marka waa insha Allah ilaah bay leeyihiin anagana ilaah baan leenahay dadka muslimiinta ilaah bay leeyihiin marka insha Allah kullay khayr baan rajaynayaa insha Allah dadkana waxa waay goor alla goortay noqotoba insha Allah way ku xoroowi doonaan cadawga muslimiinta yahuudu way ku xoroowi doonaan insha Allah haddii ilaah yiraahdo markaan waxay ila tahay in hadda waqti xaadirkan loo baahnayn in dhaqaalaha laga jarto dad iyaga macnaha dunida ku kala fardhisan qaxootigooda shacabkooda maatadooda iyo macala ilmahooda iyo macala haweenkooda adduunka ku kala firtan in hadda la yiraahdo waxa way dhaqaalihii baan ka jaranay waa arrin aad looga xumaado waaye wayna ku qaldan yihiin marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in dadka muslimiinta qulubtooda ilaahay isku soo duwo oo waxaan ku yiraahdaa ay mid noqdaan oo gacmaha ay isqabsadaan aan ilaahay ka rajaynaynaa marka insha Allah iyagana waxa way alla bariga ha badiyaan marka khayr badan idin rajaynaa fikirkayga saliimka waa antaas Abdulaziz Maxamed Cumar kasoo hadlaya Sacuudiga marka khayr baan idin rajaynaa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا هو الصومالي هذا waxaan leeyahay masaakiinta reer qasa oo la gumaystay oo cadawga isu kaashaday Sacuudigu inuu u raaco oo maxay ahayd uu ka gooyo caawimaadi oo Mareykan iyo cadawga gumaysanayay boqolaalka sano u raaco waa mid Sacuudiga laga filaynin waa mid cambaarayn iyo ceeb ku ah oo adduunka dhan oo muslimka uu ku cambaaraynayo oo aan ku wada cambaaraynayno oo ka wada naxayno inuu u raaco oo haddana isa soo bandhigo banaanka isa soo dhigo waa mid ceeb iyo foolxumo ay ka raacayso hamigiisa iyo maxay ahayday sharaftii uu xarameynka iyo ummadda muslimiinta uu hayay uu hoos ugu dhacayo ceeb ay ku tahay waa wax ceeb ah oo la qaadan karin waa wax foolxumo ah ha ka noqdaan leena waxaas hadday jiraan waxaas ha ka noqdo wuu jiraaye ha ka noqdo waxaas baryahan oo dhan waxaan maqlaayay inuu masaakiintaas la gumaysanayo uu ku taagan yahay oo raba inuu wadankoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodaba uu gumeeyo ha ka noqdo tii qadar baan dhibaato ku hayay haddana masaakiinta meesha ku xaraysanayd oo go'doonka ahayd buu hadda usoo dhigtay Sacuudi oo ka noqon ku leenahay waxaas wax sharaftaada iyo karaamadaada dilahaya weeye ka noqon ku leenahay muslimiintuna ay ku wada dhageysanayaan ka noqo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته su-aasheena maanta waxa ay ku saabsan tahay hogaamiyaasha dowlad goboleedyada mar kale waxa ay soo saareen war murtiyeed ay kaga cabanayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyagoona ku dhaliilay aqalka sare inuusan dhexdhexaad ka ahayn hawsha ku aadan khilaafka ka dhex jira dowladda dhexe iyo waliba dowlad goboleedyada haddaba maadaama muranka ka dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada muddo uu soo jiitamay isla markaana ilaa haatan aan la helin wax xal ah daawade maxaad isleedahay waa xal ay u noqon kartaa arintan ku aadan isqabqabsiga ka dhex jira dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu waxay ku doodayaan in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay fargelin qaawan ku hayso hanaanka ay u shaqeeyaan dowlad goboleedyada sida daraadeedna waxay leeyihiin dhibaato fara badan ayaa dowladda ku qabnaa haddaba ma ku muuqda xal ah in la isku keeno labada dhinac sideesa ayaana xalkaasi loo gaari karaa ay maanta su'aasheena tahay guud ahaanba waxaa intaasi nooga idil warkii caalamka oo aad kala socoteen shacabka media waxaa warka idin sheegayay anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji tan intaynu ku kulmi doono warkan kan xiga nabadgelyo